waxaan ahay guuleed cabdiqaadir cali hooyadiis alxamdulillaah waa ku samirsanahay wiilkayga waxaan ugu safrayna waxa weeye cadaaladda ka dhacday saakay oo jimco ah fagaaraha jariiban aad iyo aad baan u faraxsanahay qadar allaahu maasha allah way dhacdaa qadar allaahu maasha weeye way dhacday geeridaasi laakiin mar haddii la soo afjaray alxamdulillaah waxaa iigu darnaan lahayd ninkii dilay oo agteeda xaragoonaya soomaalida waxaan leeyahay sidaasoo kale yeela reer buntland waxaan leeyahay sidaasoo kale yeela cadaaladda ha lagu tiixeeyo kol annagu reer baan nahay oo cadaaladda xaggeeda u janjeernaa marka aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waa faraxsanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan wadnaa gacan ku dhiigihii dilay adeerkiis guuleed kalleeye waxaana rabnaa inaan ku wareejinno bullaale maxamed cali guuleed iyo cabdi maxamed cali guuleed iyo dhammaan reer cali guuleed ama reer sabantar waxaan rabnaa inaad nagala wareegtaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin la wareega bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxa aad ilaahay ba mahadsan marka xigana tolka lagu soo wareejiyay gacan ku dhiglaha guud ahaan ninkii gacan ku dhiglaha oo adeerkiis dilay tolo waa idin kala wareegay waana mahadsantihiin أنا أقول بحال لا أمن الله يبقى أولي بنيس. دولة مدينة. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت نفس سجيرد ويدي من الساعة وحن تعسي ودريا دولة بونتلان كان أنا عيدا كبوليس كدولة بونتلان سيدو كلا وحن ودريا قدهان لما أمنجا مامرك قبل كمدق maamulka degmada Jariiban iyo saldhigga degmada Jariiban si gaar ah oo garasho gaar leh waxaan u tacsiyeenayaa dadka ay u hayso hooyo karuur oo ay hooyadiisu kali ku ahaa ilaahayna aan ka rajeynayno inuu caawil iyo samir khayr qabo u celiyo iyo dhammaan faamilka reer cali guuleed naf kasta way dhimanaysaa geerida guuleed ku ahaana geesi wadaniya oo garasho badan buu ahaa dhammaan halkaas ayaa noo damayn doonta mid la jecel yahay iyo mid geeri la jecel mid nolol la jecel annaguna saacad uma dari karno la istakhruna saacatan wala istaqdimun ilaahay baana leh saacadna kama horumarin karno saacadna kama dibiriga karno ardaalkii waxa geystay oo eedeysanaha uu xiran yahay waxaan rajeynayaa inuu cadaalad heli doono oo mari doono waxa uu mudan yahay bidnillaahi tabaaraka wa tacaala uma qalmin gacan wax kala garanaysa guuleed inay disho mana u istaahilin nin garasho leh oo geesi ah oo wax qabad iyo wadaniyad rabbi ku dhahay buu ah laakiin de ilaahay baa amarkiisa ku ahaatay malakul jibriil baa amray in uu nafta laga qaado oo sidaas sababsado xaq weyn aad geeridu ka xumaan mayno waanu jeclayno noo noolaado laakiin qadarta ilaahay raalli baanu ku nahay waana ku quraxsanahay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala naxariisto jannadiina allah ka waraabsho cadaabkiina allah ka xoreeyo waxaan uga tacsiyeenaynaa reer Puntland waxaan kale uga tacsiyeenaynaa gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay ilaahay badal khayr qaba ha siiyo ilaahay badal khayr qaba ha siiyo meeshuu baneeyay oo ka baxayna ilaahay u soo buuxiyo intaas kadib guuleed wuxuu ku dhintay gacan ka xaq daran buu ku dhintay oo ku baxay ilaahayna waxaan rajaynaynaa khabiisu maanta dhintay caawna budbu u hoyanayaa sidii dadka oran jiray jamcaha in ilaahay uga dhigo wax khayr badan uga dhigo godka jibeerta jannada uga dhigo sida sheekhu u sheegay arrintaas marka khadaada ahayd oo halka ninka shaydaanka ah ku helo gacan ku dhiiglaha ilaahay rabbigay ha uga fardaamay ilaahay wax khayr qaba ha ka siiyo dadkiina ilaahay wax khayr qaba ha u reebo waxaanu jecel lahay sida ugu wanaagsan intii ka dambaysa intaas oo lagu qanacsan yahay in looga xaajaysto inta ka hadlay ilaahay idankiis ilaahi raaji'un kulli nafs daaqatul maut naf kasta geerida waa dhadhaminaysaa marka labaad guuleed cabdulqaadir ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ilaahay marti la jecel yahay ka dhigo ilaahay janna fardowsaha ku irsaaqo ilaahay janna fardowsaha ku irsaaqo ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay ha u iftiimiyo ilaahay ha u qaboojiyo ilaahay dabadiisna ma fidmeeyo ilaahay dabadiisna ma fidmeeyo intaa ka bacdi waxaan u tacsiyeenaynaa Soomaaliya waxaan u tacsiyeenaynaa Puntland waxaan u tacsiyeenaynaa gobolka Mudug waxaan u tacsiyeenaynaa degmada Jariiban
waxaan u tacsiyeynaynaa qoyskii iyo eheladii reer aabbe iyo reer abti iyo carruurtii iyo intii taqaanay iyo macaariiftii iyo saaxiibadii dhammaantiin waxaan leenahay samir iyo iimaan jamiila ilaahay haydi siiyo samir iyo iimaan jamiila ilaahay haydi siiyo ilaahay dabadiisnama fidneeyo ilaahay dabadiisnama fidneeyo waxaan leeyahay ilaahay baa guuleed naga jeclaaday ilaahay ha u naxariisto ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo dhammaan dadka reer Puntland iyo degmada Jariiban guuleed isu sheegi mayna maanta wuxuu ahaa intaana qofaas ugu timid Jariiban cid kuma harin intii ka shaqeysay ka iimaan ka dhayna ninkii gaari soconaya haystay waa jooga qofku waxa bay taas ka turjumaysaa ilaahay walaalkeen guuleed samir iyo iimaan naga siiyo dhamaanteen gacan ka xaq daran baa dishay daalin baa dilay aan garasho lahayn waxaan rajaynayaa meeshuu guuleed maray inuu maro haddii alla idmo ma aha midaan ku soo koobi karno halkaan guuleed qofku ahaa waxaan tacsi u dirayaa dowladda Puntland gaar ahaan ciidanka booliska dowladda Puntland sidoo kale waxaan u dirayaa guud ahaan laamaha amniga maamulka gobolka Mudug maamulka degmada Jariiban iyo saldhigga degmada Jariiban si gaar ah oo garasho gaar ah leh waxaan u tacsiyeynayaa dadka ay u hayso hooyo karuur oo ay hooyadiisu kali ku ahaa ilaahayna aan ka rajeynayno inuu cawil iyo samir khayr qabo u celiyo iyo dhammaan familka reer Cali Guuleed naf kasta way dhimanaysaa geerida guuleed ku ahaana geesi wadaniya oo garasho badan buu ahaa dhammaan halkaas ayaa noo damayn doonta mid la jecel yahay iyo mid geeri la jecel mid nolol la jecel annaguna saacad uguma dari karno la istakhruna saacatan wala istakdimuun ilaahay baa nale saacadna kama horumarin karno saacadna kama dibiriga karno ardaalkii waxa geystay oo eedeysanaha uu xiran yahay waxaan rajeynayaa inuu cadaalad heli doono oo mari doono waxa uu mudan yahay bidin Ilaahay tabaaraka wa tacaala uma qalmin gacan wax kala garanaysa guuleed inay disho mana u istaahilin nin garasho leh oo geesi ah oo wax qabad iyo wadaniyad rabbi ku dhahay buu ah laakiin Ilaahay baa amarkiisa ku ahaatay malakul jibriil baa amray in uu nafta laga qaado oo sidaas sababsado xaq bayna ahayd geeridu ka xumaan mayno waanu jeclayno noo noolaado laakiin qadarta Ilaahay raalli baanu ku nahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allah u naxariistaan leenahay taliyii saldhigga degmada Jariiban oo gacan ka xaq daran dishay xalay soo waajibaadkiisa gudanaya waxaan leenahay ilaahay sabir iyo iimaan dhamaanteen allah naga siiyo si gaar ah waxa qoyskii uu maaragtay reer Cali Guuleed baa ugu tacsiyeynaa waxa weeye asagana waxaan leenahay janno firdawsi allah ka waraabiyo waad garanaysaan guuleed waa mas'uulkii koowaad oo amniga degmada Jariiban waxaan leenahay meel jannada allah ka waraabiyo leenahay dhamaanteen way u duceynaynaa waxaan tacsi u diraynaa Soomaali oo dhan Puntland gobolka Mudug wadaagsin gaar ahaan degmada Jariiban iyo Tawfiiq saaka meeshan ka soo tagay oo xalay geeridiisa aan maqalay ninkaas qof aan tiiraanaysan oo ooyeen ma jirin wuxuu ahaa nin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali ka yahay waanu oran karno wuxuu ahaa ehlu khayr mas'uul Soomaaliyeed oo aan dadku kala xigin Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa jannatu firdawsa Ilaahay inuu ugu risaaqo Ilaahay waxaan ka baryaynaa jannatu firdawsa Ilaahay inuu ugu risaaqo Ilaahay waxaan ka baryaynaa jannatu firdawsa Ilaahay inuu gaarsiiyo intii uu ka tagay oo inta aan soo sheegnay ugu tiro badnayd oo ehel lahayd oo jifi lahayd oo qabiil lahayd oo caa'ilo lahayd oo waarid lahayd oo walaal lahayd oo ilmo lahaydna samir iyo iimaan jamiila Ilaahay ka siiyo gaar ahaan gobolka Mudug degmada Jariiban hay'adda booliiska uga tacsiyeynaya qoyskii iyo qaraabadii hoose uu ka soo jeeday oo hooyo karuur oo maanta nala joogta ay ka mid tahay uga tacsiyeynaya geeridii naxdinta lahayd ee ku timid guuleed Cabdulqaadir Guule Cali Guuleed waraagiisa iyo waxqabadkiisa iyo alla ka cabsigiisa waa la wada sheegay wuxuu ahaa nin culimo ah ehlu salaada sharaf leh intii taqaanaa ay ku taqaano sharaf iyo xushmad iyo wanaag iyo alla ka cabsi waxaa dilay gacan ka xaq daran baa dishay waxaan leenahay ilaahay
جنة الفردوس أعلى كورابيو ونحرس إله ونحرس إله ودمنا إلهي عسى وش الله ودمنا شقاء سو كتشرة وما دو شقين يوبح إلهي ودم داف الله كسي إلهي عسى وحلنا إنتاني كرامة إلهي ودم داف دم داف بان ويدينا يا أنا قلنا إلهي عسى وش الله نودم داف guuleed waxa weeye wuxuu ahaa ragga ugu qiimo badan saraakiisha geesinimada kartida howlkarnimada waxa uu ahaa raggii horena waa taabteen anna halka soo koobi karno insha Allah billahi taala ilaahayna wuxuu ku minaystay in raxmadeed baa rabbi ku fiiriyay subhanahu wa taala waayo markuu dhimanayna wuxuu ku dhintay shahaadadii qowlka ugu dambeeyay kalimatu laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah nabiguna waa inoo sheegay alayhi salaatu wasalaam qofkii yiraahda oo ilaahay waafajiyo waa dakhal janna aakhiru kalaam laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah kelmadda ugu dambaysa qofka shahaada ku yiraahda waa ahlu janna weeye wuxuu haddana ku beegmay oo halkaasi kasi tilmaamaysa waa khamiis waa bacda duhur habeen jimcaad buu hoyday qofka hadduu saacad ku yeesho waa khayr badan baa loo filayaa waa ahlu khayr baa la yiraahdaa marka waxaa leenahay sida ay u muuqato Allah ka dhigo kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo xuur caynta jannada Allah siiyo ilaahay ha kulli baano ilaahay qaadiraysa qiimihiisa ku risaaqo gacan ka xaqdaran baa dishay ayadana waxa weeye halelo boobsiyo god kale halelo diyaariyo ninkaasu yaa ayuha alladina aamanu kutiba calaykum alqisaasu fi alqatl qofkii qof dila in la dilo baa waajib ku dhigaya wuxuuna ahaa sarkaal dawladeed degmadaasna xukuma qabiilka sidoo kale waxaan rabnaa ninkaasu adeer buu ahaa adeerkii buu dilay khamru ka dhargay mooradu islaamku ka baxay wixii kale laga sugaa waa inuu saas oo kale yeelo weeye marka god kale inoo boobsiya asagana waa raacayna mar labaad waxaan u dirayaa ciidanka booliiska Puntland iyo dawladda Puntland gobolka Mudug iyo degmada Jariibanba iyo deegaanada kale hoos yimaadaba ilaahay jannadiisii firdawsaha ku risaaqo guuleed waxaan kaloo sheegaynaa saaxiibkan walaalkeen waa tagay walaalka kalena wuxuu u baahan yahay cadaaladda inuu maro sidaas oo kale buu cadaaladda u marayaa sidaas oo kale asagana mar dambe ugu ducaynaynaa haddii ilaahay idmo hawshana waa dadejinaynaa haddii ilaahay idmo raajicuun anoo ku hadlayo magaca xukuumadda dowladda Puntland gaar ahaan madaxweynaheena Saciid Cabdullaahi Dani waxaan dhammaanteen idinkaga tacsiyeynaynaa geerida naxdinta leh ee ku timid taliyihii degmada Jariiban waa ka xunnahay wixii meesha ka dhacay wuxuu ahaa nin ammaan iyo ahlul khayr ahaa oo ahlul diin ahaa oo firfircoon oo nabadana aad uga shaqeynaya xukuumadda waxay idiin soo diraysaa reer Jariiban iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo waalidkii in ilaahay maaragtay naxariistii janno ka waraabiyo walaalkeen tacsidaasna naga guddooma reer Jariiban waa ka xunnahay waxa meesha ka dhacay guuleed annaga wuxuu noo ahaa nin firfircoon oo ciidanka amniga deegaanka Jariiban matalo wax bartay aqoon amni leh hadda gacan ka xaq daran baa dishay gacan ku dhiiglihiina waa xiran yahay hawshuna waxay u taallaa haddii ilaahay ku roon yahay adinka oo reer Jariiban ah sidaa ka yeeli lahaydeen shareecada islaamka waa midda annaga dastuurka iyaga ah ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa raggii iga horreeyay oo dhan inta ay yiraahdeen ayaan la qabaa